wiilkii isagoo dhalinyar ah aabbihii oo indha la cidlada uga tegey. Sheekada ninkii indhoolaha ahaa, nin reer miyi ahaan jiray baa wuxuu noqday indhoole. Ninku carruur wiil buu ka lahaa. Markaas baa ninka waxaa hagi jiray wiilka oo ay caado u ahayd inuu hagidda aabbihiis ka cabto. Inkastoo wiilka caasinimada lagu ogaa, haddana waxba lagama qaban maxaa yeelay qof kale oo lagu beddelo baan jirin. Maalintii dambe baa wiilkaas iyo aabbihiis oo meel cidla ah maraya. Wiilku wuxuu ku tashaday inuu aabbihiis lumiyo. Kolkaas wuxuu fariisiyey geed hooskiis, wuxuuna u sheegay inuu geed ama dudumo fuulayo, isagoo hubsanaya in meelaha xoolo ka dhow yihiin iyo in kale. Taasna waxay keentay in wiilkii aabbihiis uusan ku soo noqon. Dabadeedna halkaas baa ninkii indhaha laa bahal ku cunay. Wiilkaas aabbihiis nolosha ku xooray markuu weynaaday buu guursaday. Kolkaasna Eebbe baa wuxuu ugu deeqay wiil keliya. Wiilku goortuu koray baa waxaa indha beelay aabbihiis oo ah wiilkii isagoo dhalinyar ah aabbihii oo indha la cidlada uga tegey. Ninkaas indhoolaha noqday waxaa hagi jiray wiilka keliya ee uu dhalay. Wiilkaas iyo aabbihii markay sidaas muddo ku wada socdeen baa wiilkii wuxuu bilaabay xumaato aabbihiis lumintiisa ku saabsan. Xumaantaasna waxay keentay in labadooda oo socoto ah wiilku aabbihii intuu geed hoostii fariisiyey uu ku yidhi, aabbe, in xoolo ina ku dhow yihiin iyo in kale baan soo fiirin. Waxaase dhacday in ninkii indhoolaha ahaa intuu shakiyey wiilka warsaday meesha ay joogaan magaceeda. Markii magaceeda loo sheegayna wuxuu gartay in meeshu ay tahay halkii isagoo dhalinyaro ah aabbihii oo indhala uu uga tegey. Dabadeedna dugaagu ku cunay. Kolkaas buu wiilkii ku yidhi, maandhow igu soo noqon maysida iska tag, maxaa yeelay meeshaani waa tii aan aabbahay oo indhala uga tegaye. Halkaas baa ninkii looga tegey, bahaluhuna ay ku cuneen. Taasna waa abaalkii uu horay u geystay, maxaa yeelay haddii ninku aabbihii cidlada uusan uga tegin lagama tageen. Qof walba aabbe iyo hooyo baa dhalay. Waxayna uga baahan yihiin dhaqaalayn joogto ah inta ifka ay ku nool yihiin. Qofkii waalid caasi noqdase waxa uu dambayn doona foolxumo adduun iyo cadaab aakhiro.